wadaa waxaan ka codsanayaa inta aanan gudagelin mawduuca iyo barnaamijyada aan idin wado ka hadlayo inaad marka hore saartaan inaad furtaan gambaleelka noo saartaan like subscribe wixii commentiina aad hoos noogu reebtaan maasha allah wax badan baan kala maqnayn laakiin caawa waan soo dhacay intaas kadib walaalayaal horta marka hore waxaan ku horumariyaa xaaladda ka jirta dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho horta walaalayaal annaga haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed ciil uma qabno maanta colaad ma rabno ma xiisaynayno dhagaheenu rasaas inay maqlaan ma xiisaynayno inaan aragno magaaladii Muqdisho oo kala go'go'an oo nin waliba oo asagu meel xayn intuu isugu geystay ciidan asaga taabacsan ee halkaas godad ka qotaan oo dagaal ka galaan ma xiisaynayno xiisana uma qabno waxaa kaloo jirto warbaahinta ama social media dadka ku jira social media YouTube leader waxaan arkayay maalmahan waxaad moodaa in la xiisaynayo oo xiise loo qabo in balaayo dhacdo walaalayaal dalkan waa dalkiinii dadkuna waa dadkiinii ha jeclaanina adinkoo fiyus ku raadinaysaan arkaysa waxaa la soo qorayaa degdeg war degdega maxaa degdeg ah oo qolo walbaba sida iyadu rabto ay wax u fasirinayso ha jeclaanina in dhiigga dadka Soomaaliyeed fiyus lagu raadiyo degdeg nin hebel baa xagga xirtay degdeg nin hebel baa ciidan keensaday degdeg ma xiisaynayno dhagaheenu xiise uma qabaan indhaheenu ma rabaan qalbiyadeenu uma baahna 30 sanaan dhib iyo dagaalo dhex joognay 30 sanaan dhibaato ku jirnay 30 sanaan qaxaynay 30 sanaan hal doorkii dadka Soomaaliyeed annagu aan gacanteena isaga dilinay ayaan cid kale noo imaanin ma xiisaynayno qalbiyadeenu ma rabaan dhagaheenu ma rabaan wax aan jecelnahayna ma aha inaan arko aagag magaalada Muqdisho ku yaala iyo hooyo 70 jir ah gabar uur leh mid umul ah oo ilmo dhabarka ku sida oo qaxaysa aabba 90 jir ah oo hadduu doono asagoo aan u wadba lahayn oo hoos ka yaraa oo harsanayay xabad uga cararay ma jecli ama ma rabo inaan maqlo ama arko